waxaa kaa codsanaya walaalkayo muuqaalkan haddaad daawato shanalka ii subscribe garee waxaan rabaa inaan gaadho 100,000 oo qof fanaanada caanka ah Safiya Tusmo ayaa sheegtay degtu qorigu igu suran anigoo ku diri kara duca qaadan maayee degtu qorigu hay sharo moogtahay gobaaday adduun waa galbanayaaye gadgadoonka waayo waxbay kala gurayaane harka labada galin bay is-eriyada mana isgaaraane moogtahay gobaaday dadkan kala gadoonaye goodkiya abeesada dhulkan guri wadaagnaaye galowga iyo fiintan wacaal kala gudoonaye gaajo iyo haraad baanu nahay gacal walaalaahe galdur iyo waxaan meerayaa godimadii ciide garigii lixaadka u dhashiyo godo Ismaaciile indhaho guduutiyo timaho gaaray dhabarkayga guulmada qofkii eegaba gibili fuusha guulmada qofkii eegaba gibili fuushaaye guri iyo arda meeran iyo gogol kuma seexdo godadkiyo waxa aan galaa gabiga hoostiisa godadka iyo waxa aan galaa gabiga hoostiisa gaadiid wax qaadiye maliya aaladaha guuxa bardalool ganyaralan inta gudubu laashtaaye silis baa gadaal iga lusha iyo gumuc rasaaseede geeslaabkii iyo waan wataa garab surkaygii markii ay gabeene gaajada la hooyatay godol qaadi wayda ku jaloogu daray gobanimadu oyday ilma gabax ka siisay ubka soo gurteeno ciilkii gaboobiyo caradii u geysoy cadowgii qabteene u gabraaratada gumaysigu ku dhuunte galabsada xumaata geedkooda boo gobanimada waloogo ah gudka akhriyo ilka loo galaa gowracatadan wali gaadhine geedkiin haboo miyuusan dad ka naxa lahayn waalid miyuusan lahayn walaal miyuusan lahayn family miyuusan lahayn annaga family aan leenahay walaal baan leenahay waalid baan leenahay Soomaali weyn oo dhan baa naga naxaysa inaad fiyo ku raadsato dalmar baa la xiray walaal meherad kuma noqon mayso ilaahay subxaan qaadirka ka baq waligii aan wax xabsi ma gelin xaaraana ma cunin meesha aad beenta iyo propagandada aad ka keentana adiga ilaahay idin taala Soomaali Maxamed am good waan shaqaysanaya shaqan ku dhex jira hadda aad baan idin salaamaya wax dhiba ma jiraan ninkan propagandadiisa iyo beentiisa views buraadinaya aan maseerkayga cirkaas u marayaan naag ninkayga ila guursato wallahi hadda awood kale nafta inaan dhaafiyaan jeclaa kow ka siiyo kow haddaan kala tagnana warkeeda badaa maba garab istaageen ba haddaan kala tagna xataa single u yahay inuu naag kala guursado xataa ma jeclo naayarayaan bajaajo hal ila baan ku dhihi lahaa aniga وآد ياذا والبحثي البحنمدنا وحاب هير وحاب مروسا إنا إلا عنجرك أسو بنيستيد صاحب معان قبلك عاوض قروح بدنا نيروبي جوغان تا صرت حساب تقدر مدكال نكان شو شبكه نكان شو شبكه وعدان اسكو شاقه نمان كوض قروح بدنا وهذا بريتش أين نيروبي أي كسو دقان هبين إيمانين أين كنو ليهن أغو نايا isqaawis ilbaxnima oo aragtikoode ani waxaan ku dhilaa hooyaatay isar aruuriyan ku dhahay isar aruuri Soomaali Maxamed cadowgaaga ma ahan isar aruuriyan ku dhahay gabnaaga ku soo qoray nimanka keep going ku dhahayaan yey ka waalna ku dhahay meesha ugu fool xumed madaxa waa madaxiina waa soo aruuri waa soo dadaboosh afarta xabo jireer taheed maxaan ku dhahay masara ku soo duubtay markaas waxaan ku dhahay adiga dhan waxaan ku dhahay big power iyo bararisi iyo qarxisisa isku wadi ameel fo ka soo dhahay markaas haddana waxaan ku dhahay mar kuugu dhigan soo xiray fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdeg ah ku faraxda ilaahay ku siiyo ku soo biir xaq soo hortiif ana war degdeg oo hadda soo dhacayeen ka daba galay waxaan ku leeyahay muuqaal khasi la garashana kana si subscribe garashana wala daawadayaal fara badan oo wararka degdeg ah halkan aan kula wadaago sida halka ku aragto fanaanada caanka ah Safiya Tusmo ayaa sheegtay degtu qorigu igu suran anigoo ku diri kara duca qaadan maayee degtu qorigu hay sharo waa fanaanada caanka Safiya Tusmo oo sheegtay inay gabadh geesiyada tahay oo sheegtay in aan waxa weeye noloshu aanay marna ciil ku noqon doonin horta qof weyn oo waxa weeye aqal ku garaadla ah ayaa heesahan iyo gabayada fahmi kara
waxa fahmi kara qof ku qoto dheer oo ku xeel dheer cilmiga baraha bulshada. walaashan Safiya Tusmo sababta u leedahay degtu qoriga haysuro anigoo ku diri kara duco qaadan maayee waa sababo la xiriira dumarka Soomaaliyeed ee waxa weeyaan ay sheegtay inay mar walba garab taagan tahay. Safiya Tusmo oo ah abwaanad iyadoo heesaheeda iyo midhaheeda samaysata ayaa sidan aad arkaysa u soo gabayday degtu qoriga haysuro anigoo ku diri kara duco qaadan maayee weligayba barbarkayga dhulka lama dhigin. waa geesiyad Soomaaliyeed, waa gabadh dad badan oo Soomaaliyeed ay taageeraan. sida halkaa ku aragto waxa weeyaan waxaan ku hayaa dhacdooyin la yaab leh, waxaan ku hayaa warar xasaasi ah. waxaan ognahay in ay Qadar Silimo iyo Hodan Cabdiraxmaan meel ishtaysa ku kulmeen, balse maxaa ka dhashay? ma ogtahay 90% inay dumarka Soomaaliyeed taageersanaayeen fanaanada caanka ah Qadar Silimo. Qadar Silimo oo mikrofoonka u haysta fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa ay ku tilmaameen in ay khalad weyn samaysay. fanaanada Qadar Silimo ayaa taageerayaal fara badan ku eedeeyeen in ay khalad weyn ka gashay nolosheeda, balse waxaan ku hayaa war kale oo la yaab leh. kulli reeraha iyo waxa lagama sheekayo waa qof wixii u shakhsi ah u gaarana lagama sheekayo waa khalad, qofna xorriyada lagama qaado oo waa khalad. balse dumarka Soomaaliyeed ee caanka ah ee taageera Qadar Silimo oo muuqaal duubay ayaa sidan oo kale yiri. waxay yiraahdeen Qadar Silimo maynu arag gabadh Soomaaliyeed oo nin ay kala tageen gabadhii uu guursaday waxa weeyaan oo nacamleynaysa micnaha oo kale, balse waa fanaaniintana wax walba ka firo. haddaan si kale u eegno fanaanka Xareer Axmed laba reer buu leeyahay oo midna Mareykan bay degan tahay midna dalkiisa hooyo ayay la joogtay. dadku ma oga, waxay moodayaan inay gabadhii reer Mareykan ay kala tageen, balse caruur bayba u haysaaba. Ilaahay ay soo barakay. horta dad badan baa waxa weeye ka soo shawaabay muuqaalada baraha bulshada ku faafay oo ay yiraahdeen kamaana fileen manaanan aqoonsan, oo ay yiraahdeen malaa maaha inaan tahay Qadar Silimo mikrofoonka u haysta fanaanada Hodan Cabdiraxmaan saa u taagan oo heesaysa. balse kulley waa reero isku dhex jira oo dhaqmaya, waa reero meel degan, afaarahoodana lama galo. reer meel degan haddaad dhex gasho Ilaahay weyn baa ku arkaya khaladna aad ka gasho. sida halkaa ku aragto waxa weeyaan inantii Rayaan Bashaash ahayd oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa ugu xumaadeen. waxa baraha bulshada haysata Rayaan Bashaash oo soo duubtay muuqaal waxa weeyaan la yaab ahaa. Rayaan ayaa ahayd gabadhii waxa weeye reer Nairobi ee waxa weeye ninka cadaanka ah guursatay. horta weynaga ka soo hadalay muuqaalka, balse dadka Soomaaliyeed ayaa waxa weeye aad uga xumaaday. fanaanada Kiin Shaamac Yare beri ay sidan oo kala samaysay xataa culumada ayaa qeysay beriga, balse Rayaan Bashaash waxaan oran karnaa nasiib ayayba leedahay, waayo beriga culumada geyiga Soomaaliyeed ugu waaweyn ayaa qeysay oo sidaas oo kale samaysay iyadoo meeristeeda shaagan lugteeda marada ee ilaa halkaas banaanay. balse ma ogtahay Rayaan Bashaash inay soo martay nolol cakirnayd oo adkayd. ma ogtahay inay Muqdisho waxa weeye kalluumaysata ka ahayd. ma ogtahay noloshay maanta ku nooshahay inay soo samirto. war kaloo la yaab leh ayaan ku hayaa. Rayaan Bashaash ayaa sheegtay in ay dadka Soomaaliyeed ay nolosheeda ka xun yihiin oo sheegtay inay horumar ku tallaabsatay. walaasheen waxay sheegtay inay muxsinimadeeda aanay ka bixin oo waxa weeye diinteeda ay haysato, balse waxa dadka Soomaaliyeed ay ka xun yihiin ayaa ah inay daawanayaan muuqaalka ay soo duubtay ee waxa weeye raggu waxa weeyaan ilaalinayaan sida madaxweynayaasha loo wado weliba iyadoo diyaaradda ka soo degaysa. walaasheen waxay ahayd gabadh reer Muqdisho ah oo ku soo qortay nolol aad u adkayd oo cakarnayd. waxay ka mid ahayd dhalinyarada weliba gabdhaha ee kalluumaysatada ah. adduunka ma ku aragta gabadh kalluumaysato ah? dunida laguma arag gabadh kalluumaysato ah oo badda intay gasho kalluun ka soo qabsata oo reerkooda waxa weeyaan ay manaaficadsadaan ama waxa weeyaan xugmaal ay u noqoto. ugu dambeyn waa daga arka maanta ganacsi xataa ayay leedahay firaya. Ilaahay ha u barakeeyo ayaan leenahay. balse walaasheen dadkii oo dhan ayaa waxa weeye hadal haya, waxayna haysataa baraha bulshada iyadoo qofba uu si uga hadlayo. sida halkaa ku aragto waa la yaab lahoo kale oo dhacdo aan hore loo arag. waa war u qaadan waa ah fanaanka caanka ah Dalmar Yare ayaa ku baahay baraha bulshada oo laga been abuurtay
marbay maraysayo markana faraha dalmaryare ayaa dhiiqa lugaha loo geliyay cadaan ah oo la wada arkayo. walaalkan dalmaryare ayaa waxaa lasoo dubay muuqaalo la yaab leh oo lagu sheegayo in xabsi loo taxaabay oo kamid ahaa dadkii faraha badnaa ee lacagaha lagu eedeeyay Mareykan ee waxa weeye qaarkood xabsiyada lagu qoray ee ay kamid ahaayeen waxa weeye tafatirihii xogmaan meeliye iyo TV-ga Universal u fadhiyay Mareykanka ee waxa weeye deeq darasho oo aan la garanayn inta sano ee xukunkiisu qaadan doono, laakiin xukunkaas uu galay ugu yaraan ay noqon karto 20 sano oo xarig aan ka soo noqosho lahayn. haddaba waxa weeyaan dalmaryare ayaa dadkaasi sidaa yidhaahdeen. walaalkiin uu gurigiisa iska shoogaa madaxa intuu isqabtay muuqaal yar soo duubay. wadaga arkaya walaalkeen waxba ma qabo, wuuna nool yahay. dadkiisana wuxuu uga soo baaqay inay istashiyaan shacabkiisa iyo taageerayaashiisa. waxaa kaa codsanaya walaalkayo muuqaalkan haddaad daawato channelka ii subscribe garee. waxaan rabaa inaan gaadho 100,000